Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan dadka channelka ku xidhan waan idin salaamayaa. Waan idinka raali gelinayaa waqtigan dheer aan channelka ka mashquulay. Mid ka mid a asbaabtan channelka uga mashquulay wuxuu ahaa diyaarinta buuggan aan maanta idin soo bandhigayo. Buuggan oo magaciisu yahay Jidkii Jannada, af carabigana Tariiq Aljanna. Buuggan waxaan ku ururiyey ducooyinka ugu muhiimsan ee xadiisyadu Nabiga calayhi salaatu wasalaam uu isticmaali jiray galab kasta iyo habeen kasta. Markuu safar ku maqan yahay ama markuu hurdo intaanu seexan, markuu murugoonayo, markii musiibad ay ku dhacdo, markuu xanuunsanayo, markuu arrin cusub doonayo inuu ku dhaqaaqo, xaalad kasta oo noloshiisa wajahda ducadu u isticmaali jiray ee u fududayn jirtay ama barakad siin jirtay noloshiisa. ducooyinkanu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu inagu baraarujiyey inaan ka dhigno qeyb ka mida nolosheenna. Sababta waxa weeyaan ducooyinkan waxa weeyaan sababta barakada iyo farxadda nolosheen aan ku arki karayno. waxa weeyaana sababta guul kasta iyo waafajaad kasta oo noloshaada aad ku arkaysid. ducooyinkan haddaan isticmaalno waqti kasta waa sababta albaabada arsaaqada inoo furaysa iyo lacagta. waxa weeyaana ta inaga fogeynaysa macaasiga inaga ilaalinaysa. waxaana weeyaan ta shaydaanka inaga fogeynaysa ama inaga dheereynaysa. ducooyinkan haddaad waqti kasta aad isticmaashid waa ta kaa ilaalinaysa adiga iyo reerkaaga il kasta iyo sixir kasta iyo cudur kasta iyo dhibaato kastoo idinku soo socota. waxaana ducooyinkana waxa weeyaan tii kuu hagi lahayd wadadii saxda oo ilaahay subxaanahu watacaala inagu talagalay. buuggan waxaan u qoray qaab casriyeed oo xiiso leh oo qof kasta uu fahmi karo, iyo qaab sheeko ka sheekeynaysa qoys Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Burco oo ducooyinkan markasta isticmaalaya oo ka faa'iidaya. buuggan waxaan aaminsanahay haddaan si fiican aan uga faa'iidno u fahamno inuu noqonayo ducooyinkan ku jirta tii inaga caawin lahayd inaan caqabadaha nolosha iyo dhibaatooyinka inagu soo socota inaan ka gudubno. buuggan kaalinta koobaad waxaan u hibeynayaa Nebi Muxamed sallallahu calayhi wasalam, iyadoo lagu taageerayo buuggan sunnadiisii iyo iftiinka sunnadiisa iyo hanuunkiisii. waqtigan uu kordhay nacaybka loo qabo diinta islaamka iyo Nebi Muxamed sallallahu calayhi wasalam sunnadiisa. Nebi Muxamed, yaa rasuulallah, waxaan ku jirnaa ballantii iyo wacdigii ilaa intan isku arki doono xawdka biidnillah. waxaan kale uun hubeynayaa buuggan waalidkayga iyo waalid kasta oo Soomaaliyeed oo ay ku adagtay inay fahmaan sunnada Nebiga calayhi salaatu wasalaam ama ay gartaan xilliyada ducooyinkaas la isticmaalayo. waxaan u hubeynayaa wiil kasta iyo gabadh kasta oo Soomaaliyeed oo jecel sunnada nebigooda calayhi salaatu wasalaam oo jecel inay ku dhaqmaan. buuggan waxaan kale u hibeynayaa qof kastoo doonay inuu isbeddel ku arko iyo barakad uu ku arko noloshiisa iyo lacagtiisa iyo waqtigiisa iyo gurigiisa. qof kastoo dhibaato fara badan ay nolosha ay waajahayso oo aanay garanayn siduu caqabadahan iyo noloshan dhibta uga baxo. buuggan waxaan u hibeynayaa qof kastoo rajadiisa koobaad tahay inuu jannada galo. dhammaantiin waxaan idiin hibeynayaa buuggan aan u magac bixiyey Jidkii Jannada. buuggan waa waqaf iyo sadaqa jaariya, lama ogola in la iibiyo. buuggan waxaan idinku soo dejinayaa xagga hoose ee commentiga isagoo PDF ah. buuggan waxaa ogolaatay wasaaradda awqaafka iyo shu'uunka islaamiga ee dalka Somaliland oo waraaq lagu ansaxayo buuggan dabaacadiisa la qoray ama ayna siiyeen. buuggan lama ogola in xadiisyada Nebiga calayhi salaatu wasalaam wax laga bedelo ama lagu kordhiyo, taas ay tahay xaraam maqtac in xadiisyada Nebiga lagu ciyaaro ama la bedelo. buuggan lama ogola in loo tarjumo luqad kale ama af kale iyadoo aan ogolaashihii aanana laga qaadanin. waxaan idinka codsanayaa buuggan inaad faafisaan, akhridaan sunnada Nebiga calayhi salaatu wasalaam inaad ku dhaqantaan, inaad cid walba u dirtaan oo laga faa'iido buuggan. taas waxa weeyaan dariiqada qura aan ugu hiilin karno Nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo sunnadiisa, iyadoo meel kasta adduunka maanta dagaal lagula jiro sunnadiisii iyo Nebi Muxamed sallallahu calayhi wasalam, oo ay hubaaltay maalin ka mida maalmaha yowm alqiyaama inuu Nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu ina weydiinayo maxaan qabanay oo sideen ugu hiilinay sunnadiisii, oo inakoo maqayno maalin kastana la caayayo Nebiga calayhi salaatu wasalaam maxaan qabanay oo sideen ugu hiilinay. wixii comment ah ama wixii faahfaahina ama wixii su-aal naga weydiinaysaan buugga xagga hoose waxaan idinku soo qorayaa number WhatsApp oo nagala xiriireysaan. waxaan rajeynayaa inuu Ilaahay buuggan inagu anfaco oo inoo barakeeyo oo aan ka faa'iidno oo Ilaahay anigana iga aqbalo ayaan Ilaahay ka baryayaa.
waana mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.